بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. صباح wanaagsan deersaaka waxaan ka hadlayaa wax shalay ummadoo dhan ka fajiciyay oo hadaan Soomaaliland nahay aan la yaabnay ninka safiirka ee Djibouti u fadhiya safiir ku sheega oo gudoomiyihii ruuxiga ahaa ee Soomaaliland Faysal Ayr waxa ka sheegay oo yiri Hargeysa ku dilayna waan ku falayna hadii laga ka qaban waayo taasana laga yaabisay waxaan leenahay Djibouti annagu Faysal waxa uu sheegay waan la soconaa waa runtii Djibouti waa cadawgeega koobaad waxa weeyaan hiil walaal bay ula baxeen Muqdisho wax la laxay noo qabtaan ma jirto baasaboor iyo macwiis way nagu xukumi jireen labadiina waanu tuuray hadii ninkan maanta madaxweynaha ay inta qadarinayo seedinimo u qadarinayo isaga jirtaa iyo baasaboorkiisa isaga jirtaa laakiin waxa leeyahay dawladda Soomaaliland hadaa naf leeyihiin oo inuu dhiigin ku jiro oo inuu wax kala qaadanaysan ninka safiirkii 24 saacadood wadanka ku gaadhay hadii kale waxba laga qabanaya baada ogaada waxba laga qabanaya ninkaas hanjabaadu soo Faysal hanjabay Faysal Hargeysa jooga oo ku dhashay jid ku dhashay oo degan hanjabaadu hanjabay waxa laga qabanaya waxa laga qaban doono waxba laga qaban doono ninka 24 saacadood ta kale waxa la yaab leh TV-ga qaranka laga soo daayay war meelka dawladdu ma la jirin marka ma la jirin oo aan la jirin xididnimada tiina ina geelo ku sameeyay baan ogeyn oo soo boobay ee la soo tuuray ayaan ogeynaan iska liqnay Djibouti waxa ku 200 dayday ku filan 200 dayday ayaa ku filan waxba iska cilmayaan Faransiiskuna iskaga tagi waa magaalada yar qura waxaan leenahay Djibouti waxayna ka doonayeen laga baxa ordo hiil walaal doonta Soomaali weyn iyo kuwaas ayaa wax siisan doonta jawaasiyo iyo macwiis lagu xukumi meesaan in daayibaan leen madaxweynaha taan siinaya hadaa wax ka qaban weydid oo ninka wax ka qaban weydid laba waxyaabood baa loo qaadanaya nin baasaboorka ilaashanaya iyo nin xididnimadu jiidanayso labadaas uma lagu qaadanayo waana dhab hadaa 24 hours ka bax